su-aashan waa su-aal labadiin dhex taalo marka wax lasoo gudbinayo bini aadamna layahay qofka qalad waa ka dhici karaa ma jiraan muuqaal aad mar soo duubtay aad soo gudbisay bulshada la wadaagtay haddana maalmo ama bilooyin kadib dib markaad ugu laabatay muuqaalka aad digad garayso aad dhahday fikirkaasi waa qaldanaa qaabkaad muuqaalkaasi usoo bandhigta ha noqdo maxaa arinkaasi ka dhihi lahayd oo ma jiraan muuqaal noocaasi mar intaad duubtay bulshada la wadaagtay haddana dib intaad ugu laabatay يعني أدي إسكاجا تديب ولا عطيه مقالك كسرت مجرى صح حركة هنا يعني بطان ما بهدان إنسان خير هالعلماء وحلا ومقعد ولا كثرة نسيان صح هل ما كيس هذا فرق صح مركا وحبضنا ولا جيا وعاد استلحيت واسطة يا مركا مقالك أمتي لو ذاكت يا لقى يا أنا عرفت إني أعرف السيتي كبدلته waxaa khasab noqonaysa markaas khaladkan inaad umad xafiisa aad sidaa meesha uga saarto arrintaasi way dhacday inaan muuqaalo badan uga saaro waxaa kaloo dhacday inaan muuqaalo badan uga saaro fahamkii dadka iyo muuqaalkii aan soo dhigo isqaadada hadda ka hor muuqaalka marka waa dad aan ahayn dadka cilmiga loo sheegay ee xoog dhexda kaga dhaca marka inaad aragto cilmiga aan dadkiisa ahayn oo dadka walaalkiisa soo gaareen iyo inaad aragto inaad adigu khaldan tahay labadaasi ayaa dhacday inaan la saaro ibn cabdallah ma jiraa muuqaal aad dib inta ula watay ka saartay muuqaaladaada ha uu jiraa cali ma markhaati ka ah mar dhaweyd bay ahayd horta insaanku waa khaldamayaa anigoo xataa wax khalada ku dhicin baan iska dhaadhacsiiyaa inaa khalad ku dhacay maalin baa cali la soo xiriiray muuqaal baan dhigay 2 hours buu yaalay tiktok 84,000 oo qof baa daawatay muuqaalka hadee dad badan baa daawaday daawashadu si kici lahaa cali baan soo wacay cali waxaan yiri khaladkaasaan kala fiiray cali wuxuu yiri khalad ma aha wax weyn ma aha buu yiri maxaa wax weyn uga dhigaysaa wax weyn ma aha wax hadda la isku qasmo wax saa ma aha waa caadi buu yiri cali ma yaa ku yiri cali oo si fiican u fiiray cali wax weyn ma aha markaas wuxuu yiri yaxya waa dad saa'ideysid wuxuu yiri iska saar buu yiri ilaahay wax ka fiican buu kugu bedelayaa waa ka saaray maanta de waxa jira dad khalad iyagoo sameynaya oo diintii ka galaya mise dad caayaya haddii lagu dhoo khalad baa gashay maaha isaga inuu ogaado haddii lagu dhoo khalad baa gashay just wuxuu fiirinaya muuqaalkayga ma ii qarxay kama saarayo muuqaalkayga 1 hour bisa ku daawatay 100,000 soo maaha 30,000 kama saarayo fursad bay ii tahay bes waaye laakiinse haddii ay kaa tahay waxani dadkan aad la wadaagaysid wax uga tag wax sii reebo waxa kaa taga mataqaana ha kaa haraan oo maalinkaa dhimatid dadka waxa kaa faa'iidaan hadday kaa tahay oo ilaahay dartii kaa tahay fiis ma fiirinaysid waxaa fiirinaysaa un waxani dee hadda kuma dhahayo dee mataqaana khalad hataa waxa khalad ahayn baa ka saaray wax khalad ahayn baan ka saaray walaalkii cali soo sheegan oo insaan baan nahay ta khalad waan galeynaa laakiin waxa la rabaa hatta adoodan khalad gelin in wax khalad adiga kula noqonayo khalad ahayn haduu jiro aad ka saartid oo bal isdhahdid niyahow haddii qalbigaygu uusan ku qancin waxaan isdheeyay waa khalad ka saar oo khalad ahayn marka intaasan kula dardaarmaya dadka oo waxa hadii dee aad hubtaan inuu khalad yahay oo la sharxo inuu ilaahay ka cabsada waxa meesha ku sii haynina billaah alaykum adduunkan waxa ka tageena views wallahi inuu waxba ku tareen hadda 700 oo kun dad ku dhow baa igu xiran 700 dadka ku dhow igu xiran khayri wanaag baan soo gudbiya wax lacag ay hanti aan ku qaata malaha marka views ka numberkaas maalinka qiyaamo buu xisaabsan yahay oo maalinka qiyaamaha raba ilaahay ajir iyo xasanaad inuu iga siiyo adigan xumaanta soo gudbinaya su'aal baan ku weydiinaya views ka numberka ku qoran maxaa ka faa'iideysaa in tiktok lacag laga helay maxaa ka faa'iideysaa hatta xumaanta soo gudbinaysi shilin iyo lacag kuma qaadanaysid sumcad darro iyo ilaahay ma taqaana kii kale inaad dambi ka gashay baad kasbatay marka waxa hadaad hubtid inuu khalad yahay mise aad ka shakidid khalad ahaynba oo de qalbigaadu ku qani waay waxaan kula dardaarmayaa inaad muuqaalka iyo waxaas ka saartid mar labaad soo duubtid mar labaadna soo gelisid laakiin se indha adeega iyo waxaas
diinta kuma fiicna. maasha allah waxaynu u guda galaynaa su-aashiina ugu dambeysay maasha allah. maadaama hadda ayna daawanayaan bulsho aad u tiro badan, bulshadana ay noocyo badan leedahay, maxay tahay marka fariinta ugu muhiimsanaad bulshada soomaalida aad la wadaagayso ama aad gaarsiin lahayd? adiga ku hormaraya. fariinta uguna muhiimsan ee rabaa inaan diro waxa weeye ilaahay ka cabsado. ilaahay inaad ka cabsato waxay kuu sahlaysaa inaad si fudud heer ku gaarto. haddii laakiin alla ka cabsiga uu meesha ka baxo, wax walba waxaa lagaga dhigayaa wax adag. fasanuyasiruhu lilcusra labada keliya. haddaad wanaag samayso fa amaa man aqbala wattaqa wasadaqa bilxusna fasanuyasiruhu lilcusra. haddii aad wanaag badan samayso, ilaahay ka cabsato, sadaqada la baxdo, aad qof wanaagsan noqoto, ilaahay wuxuu kuu fudaydinayaa tii fududayd. ta fudud waxaa weeyahay cibaadada iyo daacada iyo rabbiga inaad ku xirnaatid. haddii laakiin ayadaasi kasoo horjeedkeeda ilaahay wuxuu yidhi amaa man bakhila wastaqnaa wakadaba bilxusna fasanuyasiruhu lilcusra. qofkii bakhayl noqda deeqtoomana oo inuu ilaahay ka maarmo iyada gashado, yani waxay u dhigantaa wattaqa bay u dhigantaa oo cabsidii meesha ka saaro qofkan kale laga rabo. yani tii wanaagsanaa laga taga oo kelimada tawxiidka ahayd. wuxuu ilaahay sheegay subxaanahu watacaala fasanuyasiruhu lilcusra. mid adag oo qofka caaqilka ee markuu si fiican u fiiriyo u arkayo qofkan inuu kadeedan yahay ayaa ilaahay isaga u fududaynaya. walidaalika waxaa arkaysaa qof meelaha dhacdhacaya ee banaankaa seexanaya, dabaysha dhibaato badan ku nool, dagaal la geliyo, waxadiyo la geliyo, la dhaawacay. yani waxaas wax adag waay. laakiin qofka caqliga leh wuxuu arkaa waxaan inuu adag yahay bannaankuna ka maraya. laakiin kan kale maadaamuu dembiye galay fasanuyasiruhu lilcusra way adaygaas isagu ma arkay fudayd buu arkaa. wax buu dili, dhib buu mari, waasay, waa la dhaawacay, wuu ordi, yani kadeed buu ku muday, kadeedkiisana ma arko. marka si aad oga mid noqotaan fasanuyasiruhu lilcusra waa inaad horta marka koobaad dhammaanteen baa ilaahay ka cabsana subxaana watacaala. markaad ilaahay ka cabsato subxaana watacaala, ilaahayna adeecdo, wax badan baad heli. midda labaadna waxaa weeyaan inaad waalidkiini ixsaan u samaysato, ummadana aad kula dhaqataan wax wanaag. wakhaaliqi innaasa bikhuluqin xasan. inaad ummadda dabeecad, xitaa culimada xadiidka waxay ku macneeyaan wakhaaliqi alkhalqa bikhuluqin xasan. ummadda ilaah yani wax ilaahay abuuray, xitaa geedka waxay dhahan culimadu geed meel isaga yaallo oo qurux badan intaad u imaato macna la-aan inaad iska goyso ma banaano. waayo wakhaaliqi alkhalqa bikhuluqin xasan bay xadiidka ku fasirayaan annaasada. marka taladeedu marka waxaa weeyahay ilaahay laga cabsado. wax walba oo aad samaynaysaan, shay walba ood qabanaysaan, waxaad fiirisaan ciribta ugu dambaysa. haddii aad ciribta ugu dambaysa ee shaygan aad samaynayso aad ogaato, waman yattaqi llaaha yuxmad fii cawaaqibihi waa xagga dambe waxaad qabanaysa waa la mahadin. laakiin haddaabaada iska fiirinin waxaan aad samaynayso ma wax xagga dambe wanaagsanba mise wax xagga dambe xun, haddaad iska fiirinin xagga ugu dambaysa wax yaalla ayaa wuxuu noqon doonaa wax adiga qoman kuu noqdo. culimaduna waxay dhahaan ilaahay ha ka raali noqdeen, waxay yidhaahdaan macsiyada raaxadeedu waxay dhaxal siisaa qoomamo. yani ladat almacsiyati tuuratu lalam bay yidhahdaan. macsiyada iyo xumaanta iyo wax aanaad dhex socoto ugu dambaysta waxay ku dhaxal siin doonaa qoomamo, ama adduunka dhexdiisa qoomaha kuu dhexsiiyaan ama aakhiraha kuu dhexal siiyaan. waxay kaloo yidhaahdaan wa ana mashaqata daacati, daacada dhibkeeda iyo tacabkeeda iyo rafaadka ay leedahayna ugu dambaysta waxay ku dhaxal siisaa lada bay ku tuuratu lada, macaan bay ku dhaxal siisaa. marka inaad waqti yar dhibtooto, waqtiga dambena aad noolaato, ama adduunka dhexdiisaba waqtiga dambe ha kuu noqdo, ama ilaahay aakhiraha kuugu dibdhigo, aad si fiican u raaxaysato, iyo inaad muddo yar oo dhowr sano ah aad tumato ood baqbaqlayso ood waxaad doonta samayso, ciribta dambe ee mustaqbalkaagana aad waba la kulanto, waa balaayo adiga mataqaanaa kugu noqon doonta mustaqbalkaaga. marka taladeeda waxaan kusoo koobaya ilaahay laga cabsado, ummaddana si wanaagsan ha loola dhaqmo, ciribta dambe iyo caaqibada wixii la samayn doonaa ha la iska fiiriyo. waa ka baxa ibn cabdalla, maxay noqonaysaa fariintaada ugu dambeysa aad bulshada gaarsiinayso? fariinteediina intaanan gaarsiin oo aanan gudbin qiso yar baan rabaa inaan sheego.
fadlan la wadaag. nin baa wuxuu aada u jeclaa qisadan sheekh baa ka maqlay sheekha ma xasuusto waxaan rabaa intaanan fariinta gudbin horta waktigaan joogno inaan bal dadka xasuusiyo aan isxasuusino dhammaanteen nin baa waxaa dhacday wuxuu jeclaa gabar rag buu lahaa un dumarku aada u jeclaa ilaahay wuxuu yiri dumar isii igu arsaaq aan dhalo ilaahay wuu baryey muddo kadib ilaahay gabar buu siiyey ninkii wuu qoslay marmarna wuu ooyey waxaa la yidhi maxaa la qososhay maxaana la ooyday caadi may waa caadi mid igu qaban mid igu qaban fiiri kamarada iyo iskula qabayaa iyo leyrka ninkii ilaahay dumar buu ku arsaaqay hal gabar wuu qoslay ninkii marna wuu ooyey waxaa la yidhi maxaa la qososhay marna la ooyday wuxuu yidhi waxaan la qoslay buu yidhi ilaahay baryada aan baryay waa iga aqbalay oo gabadhaan ilaahay ka baryay waa isiiyey waxaanan la ooyey buu yidhi casrigan aan ku nool nahay technolojigan taleefanadan waxaan jiro gabadhayda markay 15 jir gaadho sidee bay noqonaysaa qalabkan maanta jira technolojiga ah xumaan badan buu reebay marka gabadhayda technolojigan iyo xumaantan sii kobcaysa maalinkii 15 jir ku gaadho sidee buu xaalka noqonayaa yaa maanta dee xumaantii intay badatay ayaa dowlado waxay u doodayaan khaniisnimada in la fasaxaba la fasaxo khaniisnimada dee wadan walba shuruucdiisa ay ka mid noqoto marka aabi wuxuu yidhi 15 jir markay gaadho gabadhayda adduunkan la jooga xaaladdu ay sidan tahay 15 sano kadib dee way sii darnaanaysaa maalinba maalinta ku xigtaa ka xun sidee buu xaalku noqonayaa marka adduun noocaasaa joogtaan oo maantu mataqaana xaaladu ay cakiran tahay welibana ay zaa'id ugu sii cakirnaanayso awlaadda dhalanaya waayo awlaadda dhalanaya dee cimrigan aan nool nahay haddii ilaahay cimri siiyo way ka sii badanayaan marka duni noocaasaan joognaa duni waxaan joognaa xumaantii ay ku badatay xumaantii wanaag la moodayo maanta xumaanta la samaynayo dad baa wanaag u haysta inay samaynayaan dad baa ku dhahaya waxaan u doodaynaa in mataqaanaa kii kale xumaanta khaniisnimada dumarka in xataa xayawaanaadka in qofkii wax ka doono dad qaar baa u doodayo dhahaya xuquuqda insaanka ay ka mid tahay haddii aad si qalbiyana u weydiiso ku tiraada ni waxaa samaynaysa maxaa u samaynaysaa wuxuu ku dhahaya wanaag baad samaynayaa marka wanaaggiibaa xumaan isku bedelay xumaantiina dadkii waxay u qaateen wanaag inuu yahay wanaaggiina xumaan inuu yahay marka duni noocaasaan joognaa oo qariib ah oo cajiiba wallaahi dunidaas aad joogtaan walaalayaal waxaa idinkula dardaarmayaa waxaad u carartaan u orodaan kitaabka rabbi iyo sunnada rabbi ee sunnada nabi sallam waa lagu aflaxayaa waa lagu liibaanayaa sallam wuxuu yidhi sunnadayda qabsada iyo khulafaa uraashidiin lan tadiluu bacdi abada marka waxaan kula dardaarmayaa walaalaha siduu walaalkii cali faatix baa ugula dardaarmay cabsida ilaahay cabsidu faa'iidooyin badan bay leedahay ilaahay baa qur-aanka ku tiri waman yattaqi illaaha marka cabsida ilaahay baan kula dardaarmayaa inay badiyaan oo cabsida ilaahay ay joogteeyaan ilaahay subxaanahu watacaala dee qofka dadaalaa oo wanaaga u samaynaya ay dhab ka tahay oo dadaal badan bixiya suu ilaahay subxaanahu watacaala uu jeclaada qofkaas ilaahay dadaalkiisaas wuxuu ka dhigayaa mid miro dhal ah waladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana intaasaan kaga baxayaa hadalkana waan badinay asalaamu calaykum waa ku mahadsantihiin waqtigiina quruxda badan iyo barnaamijkiin quruxda badan aad ka qayb qaadateen runtiidii waxaan rajeynaya in barnaamijyo badan aan ka wada qayb qaadan doono insha allah bulshada i daawanayso haddii aad muuqaalka intan dhammaad ka soo gaartay maxaad ka faa'iiday maxaana kaaga baxay muuqaalkani fikirkaaga commentiga hoos nagu reeb aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
wabarakaatu.